السلام الله عليكم ميل كستو دنيا كجوجتان walaalkina Daras Maxamed page ka daawanaysa waa Daras Qasab page official muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa aabo iyo gabadhiisa hasaatay aabuhu guursaday gabadh kale ama markii ay hooyadeed dhimatay tayar uu guursaday gabadh kale gabadhaas oo runtii dulmi aad u weyn ku haysa markuu aabuhu guriga ka baxo qisadani waxay ku bilaamaysaa sida tan runtii familkani sida aan idin sheegay waxay ka kooban yihiin saddexda qof maadaama aabahani ay xaaskiisii gabadha u dhashay ay dhimatay waxa uu soo guursaday gabadhan ay hadda aanu arkayno ee meesha iyaduna fadhida taasoo uu kala dardaarmo ama uu ku yiraahdo gabadhani yeena wax cidla dareemin waayo hooyadeed way gooriyootay yeena xasuusanna dhimashadii hooyadeed ee garab waxaad ku siisaa sidii gabadhan aan uga dhigi lahayn gabadh aana dareebin ama tabin hooyada dhimashadeeda taasoo dhahda waan u daryeelaa waxaanan u ilaaliyaa sida gabadhaydoo kale gabadha yar waayo waxaan ahay hooyadeeda labaad inkastoo aanan dhalin haddana waa sida gabadhaydoo kale taasoo marka uu ninku joogo iska dhigtaa gabadh wanaagsan oo raalli gelisa gabadha yar taasoo aabbuhu uu ku farxo gabadhan uu hadda soo guursaday taasoo uga sheekaynaysa ina gabadhan uu isagu dhalay iyaduba ay dhashay ayna u xanaanayso sida gabadheedoo kale hase ahaatee taasi way ka duwan tahay nolosha ay ku nooshahay tan yare amase ula dhaqanto aabaheed marka uu gaadhiga soo saaro ama uu iskuulka geynayo su'aalo badan ayuu weydiiyaa uuna ku dhahaa aabbo dhibaato miyay kuu geysataa edadaa ama gabadhan aan qabo eena adiga ku dhalin runtii tan yari waa iska daacad ugamana sheekayso dhibka iyo rafaadka ay ku hayso marka aabaheedu baxo tan yar laakiin waxay u kormartaa inayna wax dhibaato aba qabin oo waayo waxay isleedahay haddaad u sheegtid armay hadhow intay ogaato dagaal iyo dil dambe kugu qaadaa oo xagga noloshaada ciqaab aad u adag ay ku marsiisaa taasoo aabaheed ay uga sheekaynayso inayna wax dhiba ku qabin iddadan ama gabadhan uu qabo aabbuhu taasoo ay leedahay waa gabadh wanaagsan oo wax kastaba way ii daryeeshaa oo waxba igama dhibto laakiin sawirka ay gabadhani ka bixinayso waa mid xaqiiqada ka fog hase ahaatee aabaheed uu farxad gabadhan yar maadaama ay hooyada dhimatay kadib gabadha uu hadda guursaday ayaa waxay ka doontaa iskuulka gabadha yar taasoo dhexda ay ugu soo sheekayso ay dhahdo na aabbaha ma waxbaad u sheegtay saaka ka waran maxaa jira ma wax xun ayaad iiga gudbisay taasoo ay gabadha yari leedahay may walle wax aanan kaaga gudbiyey ma jirto iddo ee si kale ha u fahmin taasoo gabadhani ayna ku qanacsanin hadalladan ay tan yari leedahay oo ay leedahay na waxbaad u sheegtaa gurigana ma hagaajisid ee maxaad u qaban laadahay hawsha guriga runtii gabadhani canaan ayay ku geysaa tayar maadaama aabaheed uu hadda shaqada ku maqan yahay iyaduna ay iskuulka ka soo kaxaysay taasoo ay ku dhahdo mar kastaba naawaad kibirtay oo waxaad tahay tuwax maqabata ah maalin kastana waad iska fadhidaa uun ee maxaad guriga uga shaqayn laadahay waayo iyadu ma dhalin ee waxay u tahay uun edown taasoo iyadoo murugaysan uga jawaabaysaa waan qabtaa hooyo ee maxaa jira oo aan dhibaato geystay waayo hadda ayaan iskuulka ka wada nimaadnay haddana shaqo ma geli karayo oo saakoleyn ayaan iskuulka ku maqnaa aan yaro nasto taasoo ay ku leedahay naawayaahe waabad kibirtayba maalimahan taasoo ay leedahay may waxaan kibray ma laha ee waxaan iska ahay qof iska caadiya runtii way u qaadan waayaysaa oo dharbaaxo ayay ku dhufanaysaa wayna tuurtuuraysaa gabadhii yaraydna rafaadkan aana dhammaanin ayay ku nooshahay marka uu aabaheed joogana waa mid daryeesha laakiin marka uu aabaheed ka tago waa mid aad u geysataa dhibaatooyin aana la soo koobi karin muuqaalkan intaa ayaannu ku saafmeer doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu